السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحان جوغا مساجد المقام ستيت كيسا مقالة غارسا آليات بانفي عنها الحمد لله حالة دانا وانا بدقلية فكرة دا أنكاها الله يوحاوة صدح قلب وانا الشعب كدانا مانتا مقالة أمكية وانا وحيستا وامد دلال درهدا نقالة وانا نوعايا فستان كبلاوي نقا قال كان نوعايا inaanan iimaan lahayn xoolaha dadweynaha ammaanadooda dadkii loo diray ee loo agbaday ay khaldeen ama si xun u isticmaaleen waa mid MP iyo midka u sarreeya gafara intuu aan ka soo dhaweynayna waa mid Ramzaanka midda kale waan ku cambaarayna waxa waaye waxaad ula jeedaa madaxweyne ku-xigeenka hore Rigathi Gachagua madaxweyne ku-xigeenka hore ee Kajanga ula jeedaa waa midda uu anaga ku cambaareeyay siyaasiyiinta anaga mid uu yahay ama gafara ka soo bilaabo ama MP inta wuxuu doon lahaado musuqmaasuqa uu ku eedeeyay waa mid aan aad u soo dhaweynayna waa mid cambaaraysan ku cambaarayno ayagoo islaama oo diin dadkooda wax u qabanayaan oo nin gaar ah waa inta ku cambaarayo oo uu ilmo iskuulada laga reebto midda kale oo asaga ku cambaarayno oo uu ku xuyahay waa midda qabyaaladda oo Kenya dhibaatada uu ka beerayo oo jisiya nacaybka Kenya waa mid hadduu islaam yahay iyo hadduu gaal yahay diintiisa waa xor qof kastana dadaalkiisa iyo wax qabad la'aantiisa asagoo hadduu dambiilaya laftiisa dawladdu way ka faraadayeen oo ka faraya taasna waxa waaye ummadda uu madax isku gelinayo waxaan leeyahay waqtigaada sug Kenya nimba nafaas baa soo mara adiga waqtigaada sug laakiin waqtigaada hadduu halaabay dadka cambaaraynta ka daa taasaan uga baxaya xukuma sii dheeraanay midda kale anaga magaalada Gaarisa dhibaatooyinka yaalla oon ka cabanayna waxa waaye gafanaha anaga aan u sheegayno gafanaha anaga nadiif jaamac waliba aan u sheegayno in biigan deeqow oo la soo doorto u sheegayno wax kastoo shaqada ka gaabiyeen hal meel kalbadada qaarkood xataa in la marlay wadooyinkana ka gaabiyeen dadka biyihiisana ka gaabiyeen war ilaahigiina ka yaaba oo wax ismay dadka abaaraha jiraan soon baa soo gelaya wixii hore dhacay waxa dambe ha ku sii tiirina haddana ka soo noqda oo dadka wax u qabto taasaan uga baxaya waxyaabaha ay ka gaabiyeen maxaa ka mid ah isbitaalka haddaad baanadhol waa la soo gadanayaa isbitaalka haddaad tagto waa laga camanayaa baanadhol dawada waa la soo gadanayaa wasiir baa aadan baraaw muxuu ka yahay isbitaalka wad meesha uu ku dhashay oo lagu soo koriyey haddaad tagto hadda haddii uu baaro daktarka waxaad sugaysaa intaasoo jeer bareefod buu furtuu fadhiyaa midda kale baanadhol waxaad ka soo gadanay bannaanka wixii been liida ha tago taas waa taas oo waa qodobka labaysa wadooyinka waa la marlaya hadda tan baashaan fiiri way goon tahay anu gaarleedana wax ilaahay uumay oo laga qabanaya ma jiro ma ka soo tag biyaha waxaan malaynayaa xaafadii karta maanta biyo wanaag ma jirto gaaris taas hadday beento tahay ninka ka hadli doonaan aragno alla tijaabanaada aad iyo aad biyo meel maanta laga cabaayo oo weliba biyaha laga cabayaa ma jirto wax biyo-la'aantaa dhigana ma garanayno ama wata ha ahaato ama gafar ha ahaado ama biyo ha ahaado waxaa kaloo leedahay ilmaha yararka tuuriyaa la taagan soo madax ma qabaan shaqaraan waay ba shaqa loo abuur may ka hadlaan ayagaa abuureenba dadkaana isku mashquuliyeen waxaan dhici karnaa ayagaa wiilasha lacag ku bixinayaan dowladda aawe ayaga laftooda siyaasiyiinta ayaa gurugura ugu samaystay buulooyinka si cad baan u sheegaynaa dowladdana waan ugu sheegaynaa amnigaan ugu sheegaynaa nimankaasoo imbi gafara weliba xaaladaha dadka samaystay gurub kuma jiro laakiin biiga Facebook ee MCA ku jireen arrintan waxaan leenahay ilmaha tuuriyaha wadooyinka la taagan ha ka hadlaan hana naga soo qabtaan dowladda amniga hana naga soo mana magacaabi kartaa shakhsiyaadka sida gaarka oo aad u malaynayso in arrintan ka dambeeyaan maxay u dambeeyeen biiga deeqo tuusay soo maskaxiyeen guriga soo galo soo kirib ma soo kuma jiro awada soo kuma jiro kan kale MCA waa bari villa sawa waa inuu isku sii doontaa taa soo bilowday waay ana ilaahay ka cabsana waa bari deganay dad ihlaan ma labada xitan ma labada loo diiso waay marka dadka waxaan leeyahay ummadda islaamka dhibaatooyinka loo haayo waa dad loo soo idmay ayaga hadda isku jiraan dadka isku dirin qabiilada yar isku dirin dadka siyaasiyiinta qabiilada madax isku gelinay waxaan leeyahay ilaahay naga safriyo ilaahayna magaalada Gaarisa kuma soo celiyo laakiin naga fadlaana ma sida kale uga gaabiyay hantida dadweynaha uu laqay laakiin waxaan leenahay 9 jir buu ilaahay ka yaabo
dib hooga soo noqdo laakiin finaal bay isku dirmaan laakiin b mc waxaa jiraan ilaahay aan u bareelay laga sabriyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad waa mahadsan tahay aliga abdulqaadir abukar waxaan deganahay gaarisa gaar ahaan waxaan deganahay xaafad la yidhaahdo Sunday Primary agtiisa dhinacaas cilmiga xaafad la yidhaahdo deganahay horta siyaasadda ay kasoo aad aan ugu fiicnayn waxaa weeye horta gashaag waa arrinta uu ka hadlaya arrin aad u qaldan weeye waa nin haddee xilkii uu hay laga qaaday oo meel wax ka qabta garan waaye marka dacayad meelaha la taagan mar soomaalida wax ka sheego mar kenyada kale hoos wax ka sheego mar xataa uu runta iska haysto marka nin qabiilka aad ugu dheereeya nin qabiilisto oo mar walbaba ka hadlo maxay ahayto maxaa la magaceeda buurta ka hadlo marka muliba kenya ka hadlo muliba kenya ka hadlo adarkiisa uu soo qabiil waaye marka nin qabiil hadduu ku shaqeynayo wax hore u soconayo hadda warkiisa laga dhageysanayo ma jirto marka waxaan leeyahay Gachagua wuu iska hadlay nin maaragtay nin maaragtay hadda camal fiican ku hadlay ma ahayn madaxdeennana waxaa weeye annagaa soo dooranay annagaa qabsan karna annagaa waxaan doonaa la kula xisaabtami karno nin madow waxuu ka imaaday dhawn kenya inuu annaga inooga warrabo oo fidna lasoo dhexgeliyo aad baa loogu fiican laakiin cabdiraxmaanow cabdiqaadirow iga raalli cabdiqaadir soo wuxuu sheegay in meesha isbitaal aynan jirin iskoolaad fiican aynan jirin matistan ciladahaas uu sheegay waxba kama jiraan leedahay ilmaha annaga iskoolaadka ay dhigtaan gaarisa ku yaala kemoodisa bay ku taallaa isbitaallada wax calaacalo ka jirta maaha isbitaallada si wanaagsan baa loo tagaa maaragtay waa maalin finaale nin fidno badan sababtoo aniga hadda dowladdana kuma jiri nin siyaasi hadda u dhiiraalana ma yihi laakiin ninkaasaa nin maaragtay wanaag ka talinayo ma ahan gartay dhanka kale magaalada si guud maxaa sawir aga siin lahay magaalada horta annaga marka hore waxaan deganahay meel la yidhaha elguudow run ahaantii marka hore biyo-aan baan ahayn biyahan annaga loogu darnaa biyaha waxaa loogu darnaa biyaha ahayd biyaha ayagaan hadda elguudow haddaan joogno magaalada inkastoo hadda kala bad bay ooman tahay haddana elguudow annaga xoogaa biyaan helnaa oo siduu hadda gavanahan ugu soo galay ama mbiyan hadda deeqo ugu soo galay biyaha waan helnaa laakiin waddooyinkii iyo maaragtay magaalada kala xoogaa yara daciifa marka saasan yaan wax kaga sheegay cabdiqaadir aad iyo aad baad u mahadsan tahay adaa mudan walaal waa hagaag walaal ugu bilow magacaaga magacayga nuur cabdi macalin bayna marka waxaan kaa dareemaa dhibaatada gaarsi jirto waxaa ka jira maaragtay biilaan baasan waxaa ka jira caafimaadka oo si fiican daawada la helaynin oo marka waxaa ka jira jeed xumaa ka jirta waddooyinka hadda gaarsi magaalada weyn markii laba bacdhanka tuuleen la aado dhib iyo rafaad badan baa jira marka gaaraan roob uu dhaco fatahaad ka imaadaan waddada way goysaa marka waxyaalahaas dhibkaas ka jiraan marka waxaan codsan lahaa dadka madaxda laga soo doortay aduu gafanaya aduu ambiyahay ilaa ugu yaraan musiye inay arrinta wax qabtaan dadka bal ugu yaraan maaragtay waddada wax kale dib u qaban karin waddadaata u dhisaan ka waran dhanka waxbarashada waxbarashada waa fiican tahay laakiin dhanka caafimaadka biyaha iyo caafimaadka iyo waddooyinka magaalada weyn galaba bacda u dhufaa dhanka tuulooyinka markii la aadayo waddooyinka waa lama maraan la mari karo gaaraha inuu xilliga roobka u sii daran hadda marka wadadan hadda markiin caadayso dhanka ilaa korkoraa ilaa buurta caadayso marba hadda la ballan qaadeen la dhisa dalamaan dhisin laamigu sugalinaya marka waana joogaa kate waxaasala hawayaro maaragtay halka waxayaraasaa lagu soo maaragtay cadeer alaga dhiga marka hadda aad buu wada markii roobku imaado waa lagu rafaa marka consala waddooyinka loo wax laga qabto dhiso in caafimaadka maaragta laga bedelo arrimahaas consala biyaha maaragta u dhaqaayana buurid waa la gataa waa la shuntaa inay gaarsi county waxaan imaana baa biyo heli jiray hadda county imaado oo dhaqaale lagu bata waxaa haddana inay maaragta biyo leeyahay mana ku jiro baasin waxaa consala madaxda inay maaragta arrimahaas wax qabtaan marka ma magaalada dhexdeeda mise tuulooyinka meesha biyo la'aanta ba'ana ka sheegay biyo la'aanta magaalada halka waa la gataa daawa inta magaalada hostaanka lagu koro wala tuuyo maaragtay magaalada buuraha biyo waa la iibsadaa dib baa loo hada masaajidka inuu imaado hortaayna biyo la shuba marka lacag la beemanayn maaragtay la shubo dhibaakaas jiraan marka arrimahaas aan saan xalaa masaajidka ugu qalin hadda biyo la garaamiya ayaa la shuba walaalaadi aad u mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم magacay waxa la yiraahdaa Axmed Nuuriye Cali waxaan joogaa ku suganahay magaalada Gaaris dadkii badan deegaanana waan ahay dhibka magaalada Gaaris ka jiro mar walba media ayaa loo dhiibaa waa la gudbiyaa laakiin waxaan malaynayaa falcelin badan oo ka soo korodha haddana ma aragno
دلوقتي مجال هسه حكمله مرة بديا لقى الله بيلام مجال كجرته وحنا لقى ما قبته قولي أما وجه صارني أما وجه هايلها عين وبيها هنا يورك ولا بحب بدلان وإحنا كمان بدلان دم كلام مجال هسه حكمله هاي وهالجرا أيضا قشة فربنا مجال الملك السيالو قشة كان أيضا واحد لقى ما قبته وحنا كيسان ماله وده قشة بعد دافن مالك البديها ولا قضي والله تعالى قلبيها وسقدين المران حلو والبعض كيسان دكتور بيجان كاه قشة كل قرية أما تايرها الوجودية أما قشة كان بوغل أيها الوجودية waxaas marka ayadana waxay tusaysaa magaalada dhaliisha ka jirto oo dadkii deegaanka ahaa oo magaalada mashaayada waxaad moodaa inaysan shaqaba ku lahayn magaalada inay tahay culayska iyo dhibabka kale hadda magaalada ka jiro oo ayadana aan la yaabana wax ka khaldan waxaa waaye laamiga gaaris waxaad arkaysaa xilli walba waa la qodayaa meel baa la jabinayaa haddana markii aad tiraahdo waa la dhisi doonaa waxba lagama sameeyo oo xumano haddana muuqdo waxaad arkaysaa kalbad baa la qodayaa oo lacag badan lagu bixinayaa kalbadkii haddana 2 sano ama 1 sano kadib haddana waa la duugo dib haddana mar labaad loo xabaalayaa haddana markii la xabaalo mar labaad haddana waa la qodayaa kalbadyada magaalada hadda marayaan biyaha wasaqda ama ka saar lahayn biyaha deegaanka markii ay roob ku doo baa xillina la duminaya xillina dib baa loo dhisayaa marka ma garanayno mashruuca meesha ku jiro dadka deegaanka iyo dadka kontraktiyaalka wax qaadanaya miyaan ahayn dad deegaanka u dhashay dhaqaale miyay waa u xiranayaan oo inay magaalada marna la burburiyo marna la dhiso ma danba ugu jirta waxay ka arkayaan ma garan laanahay laamiga hadda labadii laami hal bay waa horaayeen mid labaad la dhisayay arhayar baa markii hore lagu shubay wax yar oo laamina waa lagu daajay isla markiiba waa ka istaageen qolada dhisaysan noobadii iyo wasaqdii iyo dhagaxii wixii hadda baabuurta ay say maraan aadan garanaynin haddana maalba meel baa la qodayaa meeshii markii la qodana waxba lagama bedelo marka waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka u dhashay oo siyaasiyiinta inay ama magaalada wax u qabtaan haddii ayna waxba qabanaynin ballanqaadkan iyo dhaartan xilli walba ay ku dhaaranayaan kutubka quraanka xilli aan maanta ahayn baa yaa lagala xisaabtami doonaa inay ka daayaan inay dhaarta faraha badan oo magaalada ku waaleen inay ka daayaan oo dhahaan waxbaan qabanaynaa iyo inay sida u dhaarteen ay kutubta ilaahay warka sheegaan labadaaba waan ku boorinaynaa haddii ilaahay raaho marka aad baan u salaamayaa nimanka wariyaalka iyaga dagaal bay suubinayaan laakiin dadkiina deegaanka u dhashay ha ka daalin ay la tahay idinka laftiina aad baan u salaamu calaykum aad iyo aad baan u mahadsantahay